hagaag warbixino xajka ku saabsan barnaamijyadeena dambe ayaanu si qoto dheer leh uga warami doonaa insha Allah. Iminkana dhawaanahan ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ay sameeyeen qiimo dhimis dhanka adeega internetka ah. Arrintan ayaa timid markii olole lagu qaaday baraha bulshada iyadoo laga codsaday shirkaduhu inay qiimaha adeegyadooda dhimaan. Dad badan ayaa talaabadan u arkay inay qayb ka tahay awoodaha baraha bulshada. Haddaba si aan wax dheeraad ah uga ogaano waxaa inoo marti ah Aadam Dirir oo ah ganacsade isla markaana daraaseeya saameynta internetka. Aadam, ku soo dhawaad barnaamijkeena. Sidaan ognahay aaladda internetka waa aalad cajiib ah oo isku xirta caalamka oo dhan. Siduu ololahan ku bilowday? Saameyn intee la eg ayuu yeeshaad isleedahay? bismillah wa mahadsantiin BBC iyo dhamaantiinba. runtii internetka caalamka imika dowladdan buu dhisay ولو العرب سبرينتي عالم كالكل يعني حبينا نقولنا أرنكن سومالنا كتاجن وحب العمل مي وبالعمل سنة كان وحب العمل مجال برع وحب العمل شكل هذا هيكو ومركز الليل كا جري سأيوك بالعمل لما يرى السوشيال ميديا يدرس السوشيال ميديا أي بالعمل وحنا لحين قيمها نقدمه ما دام قيمه ودكاس ما هو صدع صور باوري ما جين مركز هيكو ما صدق كعبي guddiga dibadda waa laga qayliyey marka ayana runtiisa way ka jawaabeen qiimihiina way geliyeen way soo talowday waxay timid talasin so marka in ololayaal sidan ah ay bulshadu qaado ay kula hadlayso shirkadaha adeegyada siiya amal waxay u baahan tahay in dad badan ay haystaan aaladda internetka ama taleefanada dadkeenu badankoodu waa reer miyi so marka ma isleedahay kaliya dadka awoodda u leh inay ololayaasha noocan qaadaan umba isbedel la noocan keeni kara inta badan bulshadu ma awoodo عشان سياسة أنا ممكن أكون مثلا قطاع صون نقطي مين وين تجي كسماير وين تجي لو يعدنا وين تجي قف كستا وفا هايستا سمارت فون بهايستا ما كان استفيد كان أوراني في الميجو فون كما هايستا وين هايستان ملك السفون قالنا وين قالنا فور تشيجو ما كان حاس والله ولا سميه مية مجال حلوك على بطو لكن قف كستا ما أنت وحايستا يسلم لك أبدا وحلاقي بدك كم يالوين كوا وين توجيني يجين dadkaasoo markii hore u isticmaali jiray Facebook qabyaalad siyaasad wax kale laakiin nidaamku shiftiga dhacay oo loo isticmaalayo sidii wanaagsaneyd ee markaasi loo baahnaa waayo Hargeysa waa magaalada labaad ee Soomaalida markii ku nool ay ugu qaalisan tahay waxyaalo badan markaasi qaali ah dadkina markaa dadkii marka haddii aan yar Soomaaliya iyo Telesom baa yartay way ka jawaabtay 7 minute baa lagu hadli jiray 1 minute imika waxay ku soo dhacday inay $7 bishii qofku uu bixiyo oo bishoo dhan ku hadlo marka shacabka iyo Facebook wada socdaan waan ku gartay marka rajo intee ayaa laga leeyahay in mustaqbalku ay ololayaasha noocan ah ay dhaliyaan isbedel la taaban karo bulshada dhexdeeda عشان markii Somaliland internet ka bilaabmay 90-dii bay ahayd ilaa imika waxa la qaaday lacag inta leey laba weeg oo social media lagu kacdoomay ayay qiimahaas u dhimay marka waa achievement baan qabaa shacabku aan baahnaa anu ganacsadaanahay shacabka in loo tagana waan doonayaa laakiin shacabka meelo badan ba aan ganacsadaydo aan marka dib opportunity ka eegnaa laakiin waxa muddo shacabku inay tooseen bari bulshadana aan ahayn dagax la tuurayo hadal iyo social media lagu wada hadlayo ay tahay ana tahay xadaarad umada Soomaaliyeed maanta gaadhay umada reer Somaliland ay hormuud ka tahay inta aad hadda la socoto ma jiraan ololayaal kale oo looga cabanayo adeegyada ay bulshadu helaan oo lagu doonayo in lagu bedelo wallahi maanta waxa social media saarnay sanbaa shirkad leeyahay oo Hargeysa ka dhisan oo dadku aad uga hadlayeen marka taasina waxay ku jawaabteen eedi doonaa kuwii hore waxa ku jawaabeen wanaag bay ku jawaabeen dadkii way u naxeen waana maqnay cabashadii dadka okay aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Aadam Dirir oo daraaseeya internetka nagaga soo biiray magaalada Hargeysa oo qayb ka ahaa ololihii lagu bedelay qiimo dhimista internetka mahadsanid Aadam